بدأ أيوة الله أكبر وما قلنا الله مركز إنكو حريركي نحن كسب بلاد مركز حريركي وصل أولها كسب الله أكبر وقصة بدن runtii intood maxaan ku raadanayn horta waxa la adduunyaha oo yimaada waxa weeyaan horta waa qas aad iyo aad xanuun badan waxa jirta adiga oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووراشين سرير السمن channel كان نقدر أقول نسعنا وchannel كيني سرير السمن channel waxa maanta aan inoo bilownay oo bilowno hadii la haraado weekina laba channel soo doonaa barnaamij la magac baxay maxaa ka taqaanaa jacaylka oo hadba inuu soo martiqaadi doono qofkan isleenahay jacayl baa ku dhacay ama qase jacayl buu uga soo joogay hadii ilaahay yiraahdo barnaamijka maanta waxa marti noogu ah walaasheen Mushtaaq Maxamed Faarax oo ah dabana jacayl intii jacayl in badan ay soo waday oo maxaa ku rahanay wiil Soomaaliyeed ay badan soo wada socdeen maanta nacam ay kala hareen ama bade ay xaaladu iska meel cakran marayso dawr bixin laga siin doontaa jacaylkiigaas iyo halka ka soo bilaabmay iyo maxaa ku rahanay walaasheen مختار ولاشن مشتاق محمد فارح سؤاله مشتاق وسؤاله برامج كسرة السمن شنو وندو ولا لا أدنى كلام هالدنيا كسرة السمن شنو هذا يو شنو هذا سؤال شو اللي ويديسي كنتي هدام كذا توارو ويشتي حرير إلى هذا السنة كبعد لحدة سنة أنا قلنا كسرة مين كانوا يسعونه أيهم بعد ما أقول إنه كسرة ماني ما الله كم إذا فيسبوك عن مهركيسي مركا محمدا كنتي ألفا معي هذين وان حمصدي لا اختار بان عندي وقالت عارف قدرتي مركا أنا كيو تهريبي هذا أنا كذا وكبر ديسكورسين وتهريبي كذب البضع الله أكبر وما قلنا الله مركز إنكو حريركي نحن كسب بلاد مركز حريركي وصل أولها كسب بلاد مصر إنكو أول حسنا وذا السعودة أو حسنا ما عندك أيو إنك أقول أقول قبل كورسنا هاي قبل ما كان موضوع كيشوفتي مسدك دبيت سكت ما دك دبيت شوفتي هاي كدبنا هل كان سلها الجسم بمهاك وقدع هاي مركي طبعا ده إله سبحانه وتعالى هو قرآن معنا هاي له قدة وكل بنته سوق سكت شوقه وحصل هاي مركز سوق شوقهم باوتكم باكحية هاي بدهم كله marka inagu markuu guursaday inankaasi ma in dadka la hadheen buu tahriibay oo markuu soo guursaday dadka hadheen mise waxba ay sii socdo xiriirkii uu sii jiray intaan tahriibin ka hor intuu tahriib doono ma xiriirkii uu socday haye wada kullu jacaylku ma baaba wadagtay kullu aniga mar walba bartiisa way taagna haye qadartuna way dhacday carafkuna meeshiis haye marka iyadoo maxay hadaan xiriirkaygu socdo watan هذا عرف وكاري ما بحكم عرف كده إله سبحانه وتعالى تمام سنة سبحان هذا عرف كلها الله سبحانه وتعالى بقى إيش ما عرفت يا نفع عرف هذا كله هاي مركا أنا حرير كام سيد وضع معناه مركي أنا نقول أكيد الكل سيد أول حمص سيد حتى نستيلو أيام معنا مسكو قان سيد أنا قان سيد هاي إن هذا أنا ما يدرين إنه ده ساعة بالورن تلاهم قفك ساعات يسوق المبتدئة marka raad inta leeg bad ku rabtay adigoo jacayl u qaba oo inkaas la wada socdo markii uu guursaday raad inta leeg bad ku rabtay intaan ku soo noqon ku soo laaban oo ku sheegin in nacab xiriirkiina soo dhisnaado nacab raad inta leeg ku rabay guurkiisa inkaas runtii waxa la oran karaa de kullu fahmaysaa adiga qof aad lixsano aad maartay asleed isaga mooyee de cid kale ma garanaysaa ma gaar ممكن سلس ونيتكم سوسن كليا قلبي كويس ودي كل داوع كغاري ادوس كدريمسا كنت انا قال لها دوري داوعي ما بيما هذا الله اكبر وقصح بدن runtii intood maxaan ku raadanayn horta waxa adduunyaha oo yimaada waxa weeyaan horta waa qas aad iyo aad xanuun badan
waxaa jirta adiga oo qofkii jeclaa oo awalba isaga mooyaane aan cid kale maanka ku haynin markuu kugu durgursado naxdin haddana naxdin kale ay kugu biirto waa qiso aad iyo aad u xanuun badan runtii qisooyinkaasina waa sheekooyin soo noqnoqday weeyaan maxaad u diraysaa fariin inamada Soomaaliyeed ee iyagu inaan la sheekaysta oo inan nacam u ahli wada galay oo cad meel wada dhigtay haddana inan kala guursada ama og inay iyagu inan jeceshahay dee inan kale haddana isku guursada maxaa fariin u diraysaa sarada aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii inamada Soomaaliyeed meel kasta jooga waxaan leeyahay hablo way idila dhasheen way idin dhaleen way waan dhali doontaa de qof dhan oo maaragtay aad waqti soo wada marteen iyo jacayl intaa la eg macnaha in la dhibaateeyo wallahi runtii aad baan uga xumahay marka inamada fariin waxaan u dirayaa inaanay dhibaatooyinka ay hablaha ka ilaaliyaan runta u sheegaan haddaan markaa diyaar u hayno dee mid kale meel ugu diyaarsan de kolley iyaga ku dhowdo ma jecel in qalbiga laga dhaawaco marka waxaan odhan lahaa habla walaalihiina qalbiga ka dhaawacinina runtii haddana aniga dhaawacay gaari heer waxaan taaganahay inaan guursanba ama sayda ku gaboobo bismillaahi raxmaan ilaahay kaaga masaxa qalbiga ilaahay horta duurkii dee waaba loogu geli lahaayo dee jacayl baa ka weyn oo meesha yaalla balse maanta isagii baaban joogin marka waxa weeyaan ilaahay qalbiga kaaga masaxo jacaylkaaga kaa meelo mid kale oo dee kale oo kaa masaxana ilaahay ku siiyo insha allah wallahi inamada dee Soomaaliyeed fartaan ina qaataan ma jirina horta rag iyo dumarba qof markay og yihiin inuu qalbigiisa qof ay ku jiraan inaanay cid kale u taraarixin baan rajaynaynaa insha allah markaas qoyskiina ma ogyahay jacaylkaas ilaa dhakhtar aad u gaadhay maxaan ku dhahdaa ilaa heerkaas maray ma ogin qoyskiina wax ma ogin aad iyo aad gurigu way igu iman jiray aad baa laygu yaqaanay qof ani 6 sano wada socoteen iyo dheeraa dee simaan loo ogaanay iyaga qoyskooda wax ma ku ogin arrinkaas oo soo xiriiriyaan ninka qoyskooda iyo qoyskaygu intuba waan aqaanay iyana way yaqaaneen wiilka marka runtiida kolley markuu aan ku dhacay habla ii yimaadeen marka إلهي سبحانه وتعالى سموك هاي قولي دad la isku ogyahay baa lahayd dad la isku ogyahay hana isagana waynu ducaynaynaa inuu ilaahay u naxariisto balse ma ka cafisay jacaylkaas uu kaaga baxay markii hore inkastoo damarka dad ka heshiiseen boo xiriirkiina inuu sii socdaa noo sheegtay inuu gabadh kaaga guursaday adiga oo dee meel u jooga ma halka ka cafisay intuu jiro qofka bilaanka dhinto inaad cafido way kood ku khasbantahay Soomaaliya marka waxaan leeyahay ilaahay maarka jannada ha geeyo waa cafisna wigay ilaahay aan naxariisano u ducaynayna runtii ilaahay adigana qalbiga kaaga reebo ku kala oo dee wanaagsan isaguna oo dee booskiisa ku buuxiyo kastoo kale kulay meesha qof tagayaan qof kale digi karin waxaan rajaynaynaa ayaan ku rajaynaynaa ku kale خير طبعا إن شاء الله. قضية سد ساعتين بقى برنامج كاسي وها برنامج ولاش المشتاق موجود مرتي هاي هذه أدو مع سنتها سيدي عسير بنور ساعتين مشتاق هذه أدو مع سنتها. نعم دولار. ده قضية هكذا برنامج كن أكله يكرس عندنا تويجي لبشر تحنين نون عندنا هدي الله أبود الأقراض. ده تنين كواحد سبسكرايب يلايك يوحد كله شير قريت أنت واحد لنا هذه أدو مع سنتها.